بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كلنتي wanaagsan qaar sharafta leh waa Sayid Cabdiraxmaan oo idil assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu insha Allah waa khayr maanta waxaan ka hadlaynaa maaragtay Yaajuuj iyo Maajuuj baan marka la ka hadlaynaa waxaan doonayaa Yaajuuj iyo Maajuuj in dadka Soomaalida fahmaan waxani waa cilmi weyn oo laynaga qariyay waana cilmi maaragtay ogaansho la'aantiisu ay dhibaato tahay haddaad Yaajuuj iyo Maajuuj xaqiiqadooda ogaato adduunyada wax ku dhibaya iska yar soo waxa garateen maaha kolka hadduu ilaahay yidhaahdo يأجوج ومأجوج وهذا العربي قوائيو ومأجوج haddaad cilmigan ogaato adduunyada wax ku dhibaya iska yar baarista anigu hadduu ilaahay idiin rooya khiyaaray waxa weeye 20 sano ku dhowaad ka hor baan bilaabay kadib markaan cilmo badan maaragtay confusion kala kulmay fahan darro kala kulmay wax sharci kale uusan jirin ayaan waxaan go'aansaday inaan barto maaragtay beriga college baan dhiganayay kadibna waxaan bilaabay inaan hadduu ilaahay idiin rooyahay maadaama nebiga xadiiskii rasuulka sal lla ly wasalam anagoo ka duulaya uu yiri nebigu sal lla ly wasalam yaajuuj iyo maajuuj waxaa dhalay wiilkii saddexaad ee nebi nuux ee la oran jiray yaafis ingiriiska jaabeed ayaa waxaan go'aansaday inaan ka salgaaro kadib waxaan bilaabay inaan barto dhammaan qabiiladii uu dhalay ninkani yaa la oran jiray jaabeed laatinka ama yurubiyaanka luqadahooda carabigana la yidhaahdo yaafis ilaa ugu yaraan 400 oo qabiil ayaan bartay oo qabiiladii ah yaajuuj iyo maajuuj ee ka soo jeedaya soo waxa garateen maaha waxaan bartay historigoodii waxaan bartay taariikhdoodii waxaan bartay dhulkay ku noolaayeen kulli yaajuuj iyo maajuuj waxay ku noolaayeen had iyo jeer dhulka qabow weye dhulka barafka wixii kookaska turkiga meesha la yidhaahdo iyo meesha la yidhaahdo azerbaijan iyo ka bilowdaan ilaa wixii koraa yurubiyaanka ilaa aad ka tegaysid wadamada la yidhaha nordiga sweden norway denmark iyo galbeedka yurub adigu iyo waqooyiga ruushka intaasoo dhan waana caddaanka xaggaas waa waqooyiga xagga barigana waa shiinaha ilaa iyo vietnam labada kuuriya iyo jabaanka ummadahaasoo dhan kolka insha allahu tacaala bal waxyaalaha idinka yaabiya ama aad ugu yaraan mataqaanaa hadday maskaxdiinu furan tahay waayo aniguba in badan macnaha sida in badan oo akhyaara idinka mid ay tahay ayaan ahaa kolka wadaad sharaxayo macnaha waan la yaabi jiray waxaan idin sheegi doonaa sababta yaajuuj iyo maajuuj muslimka lagu qariyay kolka hore waxaan yeelaynaa insha allahu tacaala suuratul-kahf ayaan idiin fasirayaa aayadaha allah subxaana wa tacaala uga sheekay waxaad ogaataa qur-aanka 2 jeer ayaa yaajuuj iyo maajuuj lagu sheegay meesha koowaad waxa weeye inta badan nacaanka waa suuratul-kahf dhammaadka suuratul-kahf ta kalena waxa weeye dhammaadka suuratul-anbiyaa kolka suuratul-kahfi baan gelinaa insha allahu kadibna maaragtay wixii kale cadeyma ayaan idinla sheergarayn doonaa iyo xadiistii nebiga sala allahu calayhi wasalam maaragtay hadduu ilaahay idmo videogan waxaa laga yaabaa inuu yaro dheeraado kolka haddaad haddii cilmi doon tahay daawo waxaan meesha anu kama hayo maaragtay sheekadii kabtan ayuub iyo daaya calisu kuma hayo cilmi baan ku hayaa wax ku anfaca oo ku anfacaya wallahi adduun iyo aakhiraba kolka qofkii macana danaynaya waa ka haddii أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى وآياته وجوه من سورة الكهف وحنتقلنا آياته سورة الكهف كجري أو رب العالمين وجوه من ياجوج وماجوج قل كهدولا هي هذا وحنكب الله بعيننا آيات صدح إزديتنا سورة الكهف معناه وحوي وسورة دي بغشة أما جودك ingiriiska waa cave ereyga ingiriiska ee cave carabigu ka yimid alkaaf waa godkii macnaha waana asxaabulkaafkii qisada aad taqaanaan ayaa suuradda magaceeda laga keenay kolka allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala acuudu billahi min ashaytaani rajiim wayas'aluunaka can dilqarnayni waxay ku weydiinayaan dilqarnayn qul waxaad ku tidhaahdaa saatlow عليكم منه ذكرى والدين شيغيا أرنت ذو القرنين
waxayna idiin tahay waano. soo ma aragtaan? alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala innaa makannaa lahu fi lardi. innaa annaga ayaa makan siinay oo dhaxal siinay oo siinay oo u dhiibnay oo maamulka adduunyada afarta laga saaray addoonka saalixa loolan jiray dulqarnayn fil ardi dhulka dhexdiisa ayaa la guddoonsiiyey oo la sameeyey. ereyga makana waxa weeye oo qof inta badan madax noqda, waayo nebi yuusuf oo kale calayhi salaam alla wuxuu noo sheegay subxaana watacaala innaa makana liyuusufa, iyo macnaha masar baa la makansiiyey. makansiin waa meel loo dhiibo uu maamulo saas oo kale ah fil ardi iyo dulqarnayn loo dhiibay. waataynaahu alla wuxuu subxaana watacaala waataynaa waan siinay hu dulqarnayn min kulli shayin shay walba oo u baahnaa waan siinay sababa min kulli shayin shay walbaan siinay sababa oo sababa. shay walba sababtiis baa la siiyey. sababtaas waxay noqon kartaa maaragtay waxuu saamaxaya inuu meel dhaadheerto. waan arki doonaa maanta meeluhu tegey. cilmi cusub baan idiin hayaa oo idan weligii sheekh ka maqlin anagoo maaragtay haddaad daawatayna kheyray videoga aan ugu warramay yajuuj maajuuj oo ninka maraykanka muslimka hadda kahor waraysiga qaaday dhowr sano ka hor. waxaan ka sheekaysaan qabiilada yurubiyaanka ku kala bartay yajuuj maajuuj kuwa, iyo waxaa kaloo ilaahay ugu nimcay subxaana watacaala waddan walbo adduunyada luqada looga hadlayaan aqaana iyo dadka jooga. sidoo kalena juqraafiga si wanaagsan baan u bartay oo adduunyada mountain range waxa la yidhahdo buuraha adduunyada oo dhan markaan yajuuj maajuuj baaray ayaan bartay. buur adduunyada ku taalla haddee buur dheer oonan aqoonin waddankii ku taalla ma jirto. kolka insha allah waxaasoo dhan baan hadduu ilaahay idma khiyaaray idinla wadaagi doonaa. kadib alla wuxuu subxaana watacaala waataynaahu min kulli shayin sababa. shay walba waan siinay sababtiisii, macnaha sababtu waa waxa uu shaygaa u adeegsan lahaa. kadibna alla wuxuu subxaana watacaala fatabaca sababa, kadibna sababtii buu raacay. sababtaas waxay ahayd ma naqaano, ma ma doono dheeraysay ahayd, ma wax duulay ahayd, ma cilmi kalu ahaa, ma wax kalu ahaa, ma naqaan. laakiin sabab baa la siiyey uu meel walba adduunyada ku tago. sabab baa la siiyey uu meel walba adduunyada ku xukumo. alla wuxuu subxaana watacaala xataa idaa balaga idaa balaga maqriba shamsi, ilaa uu gaaray maqriba shamsi. waxaan tusi doonaa aayaddan waa aayadda culimo badan oo muslim ku fashilmeen oo ka dhigeen qoraxdu inay dhacdo. qoraxdu ma dhacdo. qoraxdu waa 24 saac bay jirtaa. hase yeeshee ilaahay baa subxaana watacaala waa kii aayadda qur-aanka ahayd wayukawiru leyla cala annahaari wayukawiru nahaara cala alleyl. ilaahay baa huwiya, sida ereyga yukawir waxa weye waa huwin. ilaahay baa huwiya habeenka maalintiina habeen baa la huwiya. waxana waa aayad ilaahay oo maaragtay cid kale oo maaragtay samayn karta aysan jirin. qoraxdu ma dhacdo, halkaasay taagan tahay. habeen maalin way socota, waa saas. laakiin ilaahay baa ina huwiya hadday noqoto madow, hadday noqoto saa. marka alla wuxuu subxana watacaala xataa idaa balaga almaqriba shamsi, ilaa uu gaaray qorax dhacyi. fiiri, meeshii qoraxdu ku dhacaysa maaha, qorax dhac dhinaceedii galbeedkii. almaqrib waa galbeed, dhinacii galbeed adduunyadu tegey. markuu meeshii tegey wajada wuxuu ka helay haa waa ashamsigii weeyaan. xataa naxwaha carabiga ayaan idin bari doonaa ereyo badan oo dadku tageen. wajada wuxuu meeshii ka helay haa qoraxdii taqrubu fii cayni xamiatin, iyadii oo kusii kordhacaysa. caynu waxa weeye ila biyo ku jiraan. isha baydhabo soomaydaan maqal, waa cayn, waa meel biyo galeena ama ingiriiska spring oo kale la yidhaahdaa. xamiatin oo madow oo wasakha oo guduud iyo wasakhi waxaasoo dhan leh ayuu tegey. macnaha wuxuu arkay qoraxdii oo casargaabada oo guduuda oo sawirkaa intusi doonaa oo qoraxdii oo kusii dhacaysa meel biyo fadhiisadoo biyo guduud iyo waxa isku jiraan ayaa u tegey. wajada wuxuu ka helay cindahaa agteedii, macnaha meeshii ay biyaha biyo galeenkii ama ishii biyaha ee guduudka ahayd ee qoraxda kusii dhacaysay. macnaha qoraxda ma dhacdo ogaada, hadda galbeed bay ahayd. meeshii ku libdhisay weeyaan. markuu alle huwinayo subxaana watacaala waxay inaga noola egtahay inay dhacayso oo kale, laakiin ma dhacdo. cindahaa wuxuu ka helay meeshii agteeda wuxuu ka helay qowman qolo. qulnaa, kadibna alle wuxuu subxaana waxaan ku niri yaa dilqarnaynow ima an tucadiba wa ima an natakhida fiihim xusnaa. haddaad doonto waxaa la yidhi cadaab, haddaad doontona waxaa la yidhi wanaag ku samee oo iska daa.
okay meeshuu tegey oo la leeyahay subxaanahu wa tacaala ayna xamiatin waxa weeyaan arrintan aad baan u soo baaray, aad baan juqraafigan aad baan u aqaanaa. dulqarnayn raximallah wuxuu tegey arctic buu tegey, badda arctiga oo norway galbeedkeeda iyo siberia saasoo kale ah. okay adduunyada horta waxaad ogaataan maaragtay meesha timeka adduun waktiga kala qaybsa maalin baa idiin sharxi doonaa. ma ogsoontihiin inay 3 kilomitir isku jirto oo halkanna saacad halkanna tahay bari, macnaha waad ogtay am iyo bm waxaa la yidhahda waa post millennium iyo saasoo kalea soo maaha. okay nimankan ingiriiska ayaa sameeyey sinsa ilaa iyo intii ay waktiga adduunyada sameeyeen oo waxaa la yidhi greenwich waa timeka adduunyada meesha laga xukumo, kolka timekay kala gooyeen. marka meeshii ay waktiga ka sameeyeen waxa weeye gebigeeduba waa meel isku jirta 3 kilomitir oo isku muuqata. maxay marka sameeyeen ta bariga ah qaybta dhinaca bariga xigta ayay maalin ka horumariyeen oo 4 saac bay ka horumariyeen. waxaan oo dhan waa musuq maasuq. kolka meeshuu tegey waxa weeye waa badda artiga galbeedka adduunyada ayuu tegey. alla wuxuu subxaana wa tacaala xataa idaa balaaqa maqriba shamsi ilaa uu gaadhay qorax dhaca adduunyada. marka galbeedka adduunku tegey, hadda ogaada galbeedka adduunkuna meeshaas waxay isla noqon kartaa bariga adduunka, waayo siberia iyo alaska adduunyada waxaa isku raacay. alaskana waa galbeedka adduunyada, siberiana waa bariga adduunyada, labaduna waa isku dhegan yihiin. ka warrama. kolka wuxuu tegey artiga oo dhinaca galbeeda. marka ma dhinaca artiga alaska, ma artiga hadduu ilaahay ku rooyahay siberia, ma artiga norwayba, ma artiga canada oo yukon territory la yidhaahdo. si ay noqotaba waqooyiga adduunyada oo galbeed buu tegey. kadibna alla wuxuu ku yidhi subxana wa taala dadka meesha jooga haddaa rabto cadaab, haddaa rabtana wanaag u sameey. qaala dulqarnayn wuxuu yidhi amaa man dalama fasawfa nucadibuhu, qofkii dulmi sameeya waan cadibi doonaa. uma yuraddu ilaa rabbihi fayucadibuhu cadaaban nukra, kadibna rabbigii ayaa loo celin doonaa oo cadaabi doonaa cadaab kale oo xanuun badan oo xun oo kulul. kadib waa sii socday. waxa uu yidhi dulqarnayn isagoo sii wata waa aayadda 88 ee suuratlkaaf. alla wuxuu subxaana wa tacaala aayaddaas macnaha isagoo ka warramay dulqarnayn hadalkiisii ahaa. dulqarnayn wuxuu yidhi wa amaa man aamana wa camila saalixan, qofkii rumeeya ee camal wanaagsan sameeya falahu jazaa lxusnaa, falahu jazaa alxusnaa, qofkaa waxaa u sugnaaday abaalmarin wanaagsan. wasanaquulu lahu min amrina yusra, waxaana ku dhihi doonaa amarkanaga qofkaas si dhib yar baan amarkanaga ugu sheegi doonaa. macnaha wanaag iyo si dhib yar iyo waxaanu ku dhihi doonaa wanaag baad nagala kulmi doontaa weeyaan. wanaagna waanu siin doonaa, wanaagna uu nagala kulmi doonaa qofka saasa. waa dulqarnayn baa hadalka wata. aayadda ku xigta uma atbaca sababa, kadibna sababtiisii buu raacay. sababtu waxay ahayd saan idiin sheegay ma naqaan ma wax alla waxay ahayd qur-aanka laguma sheegay. alla wuxuu yidhi sababtuna macnaha waxa weeye waa wixii reasonka ah. hadda bilmetril adigu haddaad ka duulaysid xajka, haddaad ka duulaysid oo dhulka soomaalida xamar ama hargeysa ama airport jigjiga ama maaragtay airport kismaayo tegaysid ama jabuuti tegaysid, sababta ku geysay waa diyaaraddu waa sababtaada. waxaa la dhihi karaa hebel, waxaa la dhihi karaa atabaca sabab adaayira, diyaaraddii baa sababtiisa ahayd. kolka isagu wuxuu watay wallahu aclam ma naqaan. kadib alla wuxuu subxaana wa tacaala marka awal galbeed buu tegey, haddana waxa uu shiraacday dhinaca bariga. marka dhinaca bariga aayaddan soo socota waa aayadda 9aad, waa aayadda culimadu ay gebigeedoo dhanba maaragtay confuse ku noqdeen, ay ku wareereen, laakiin macnaheeda runtaan ay tusaaya maanta duulaayadna. alla wuxuu subxaana wa tacaala xataa idaa balaqa madlici shamsi, ilaa uu gaaray qorax ka soo baxa adduunyada. okay tii hore waxaa lagu yidhi maqribi shamsi, qorax u dhaca adduunyada, qorax u dhaca lagu yidhi, qorax u dhaca. kana waxaa lagu yidhi madlici shamsi, qorax ka soo baxa. qoraxda god ma ahay ka soo baxayso, ogaada. waa meesha ugu horeysa ee adduunyada laga arko qoraxda. allana subxana wa tacaala waa meesha ugu horeysa ee uu kashifka ee uu daaha ka qaado iftiinka subxii, waa dhinaca bariga adduunyada. so waxa garateen maa kolka wuxuu tegey bariga adduunyadu tegey, wuxuuna tegey siberia tegey. caddaynna waan idiin sheegi doonaa. xataa idaa balaqa madlici shamsi, ilaa uu gaaray qorax ka soo bixi adduunyada. wajadaha wuxuu meeshii ka helay tadlacu, qoraxdii oo ugu soo baxaysa macnaha ugu soo baxaysa calaa qowmin qolo korkood qolay ku soo baxaysa. qoraxdii qolo u soo baxaysa ayuu meeshii ka helay.
qoladaasoo wuxuu yidhi alla subxaana watacaala aayaddan weeye aayaddan raba inaad fahantaan lam najcal lahum min duuniha sitra dadka meesha jooga lam najcal umaanaan samayn lahum iyaga min duuni ka sokow haa qoraxda dadka meesha jooga qoraxda ku soo baxaysa alla wuxuu yidhi subxaana watacaala umaanaan samayn sitra sitra waxa weeye soomaaliga waxa weeye akhyaaray gembis gembis sooma taqaanaan gembis gembis ama waxa weeye hadduu ilaahay idiin roo yahay saqaf erigana waa la yidhahdaa soomaaliga saqaf saqaf ama fiiri erigan kale dahaar 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 soo ma aragtaan ama haddaan si kale idinkuu sheego wax kor looga dado wax ka celiya waxan horta may baanin guriga meesha sare aqalka saqaf baa la yidhaahdaa maaragtay gembisku waa meesha sare marka alla wuxuu leeyahy subxaana watacaala wuxuu qorax kusoo bixi buu gaaray wuxuuna ugu tegey qolo ay qoraxdu ugu soo baxdo ay qoraxdu u soo baxdo markii qoraxdu u soo baxdana wax qoraxdaa ka celiya ayna lahayn miyaad garanaysaa waxa weeye min duuniha sitra waxa weeye macnaheedu waa meelaan gembis lahayn gembis waxaa marka la dhihi karaa waa meelaan geeda lahayn geeda ma lahan geeda qoraxda ka celiya ma lahan hadduu ilaahay idiin rooyahay godad buuraa oo galaanna ma laha qoraxdu sideeday ku dhacdaa hase yeeshee qoraxdaasi maadaamay bariga tahay waxa weeye waa qoraxan waxba yeelayn oo maaragtay waa qoraxda la yidhaahdo weeye sidii tii galbeedka oo kale waxa weeye waa winter sunset waxa weeye meelaha noortiga adduunka sida siberia oo kale ayaa alaska oo kale ayaa arctic oo kale ah waqti waxaa jirta ay qoraxdu gebigeedaba koo iyo labaatan saac oo ka mid a waqti waxaa jirta akhyaar ay qoraxdu taagantahay halkaa kolka maadaama qoraxdu halkaa taagantahay qabowna tahay awoodna ayna lahayn sida dhulkan bartamaha oo kale sidoo africa oo kale ay u gubto dadka dee dadka uma baahnaba geedana kama bixi karaan waa dhul qabow marka meeshuu tegey ayaddana muujinaysa waa meel aysan qoraxdu dadka waxba yeelin islamarkaana dadku ay maaragtay si nabada ku nool yihiin waana meel aan loo baahnaynba geedii waxaas inay ka baxaan sidaa darteed haddaad juqraafiga taqaano dhulkani waa artig bariga adduunyadu tegey tii hore isla artiga galbeedka artiguu tegey sida alaska oo kale ah tanna wuxuu tegey bariga artiga oo sida siberia oo kale ah ama maaragtay dhulka saas oo kale marka wuxuu u tegey dhul aysan qoraxdu maaragtay marka usoo baxdo meel ay ka galaan lahayn geeda malan artigna saad ogtiin geeda malan waxaa malan gebigeeda dhan waa ban barafa oo qabow inta way la fahanteen baan u maray الله يقول سبحانه وتعالى كذلك وقد وقد كذلك وقد أحدنا بما لديه خبرا سيدا الصوك له أيام وحي سبحانه وتعالى أكوبني أمر كيسا يوحي كيسا يالي يوركي يوحي كيسا يالي كذلك ساسو كلام وقد حقيقة أحدنا أنو كوبني بما لديه خبرا وحي وركيسي خبر كيسي أريغاني خبرة وخبر في الصومالي وحنا لو نيوز هي خبر iyo hadduu ilaahay idiin rooya maaragtay cilmi iyo ogaanshihiisii wixii sidaan loo xil subxaana watacaala wixii dul qarneegtay oo dhan saasaan usoo koobnay weeye macnaha af soomaaligeena kadib loo xil subxaana watacaala uma atbaca sababa kadibna sabab buu raacay kadibna sababtiisii buu raacay so waxa garateen maaha sababtani waxay tahay laynooma sheegin saan markii horeba idiin sheegay macnaha sababtiibuu waxaa la yidhi sababtiibuu raaca baa la yidhi keliya kadib alla wuxuu yidhi subxaana watacaala uma atbaca sababa kadibna sababtiibuu raacay waxay ahaydba alla wuxuu yidhi subxaana watacaala xataa idaa balaaqa kadibna fiir 3 safar buu galay midig wuxuu ku tegey maqrib alshamsi qorax dhaca oon idiin sheegay inay tahay artiga waayo caynulxamiya waxa weeye waa iyadana waa saas oo kale waxa weeyaan waa winter sun baa la yidhahdaa waa qoraxdu markay gelayso fiiriya sawirka hortiina yaalla waa meeshuu tegey ee galbeedka adduunka barigana waxa weeye isagana waa kan oo kale sawirkan hortiina yaalla weeye muujinaya siberia inaysan maaragtay dad qorax gelin shantarka dadka dhulka ku nool ee intuit la yidhaahdo intuit baa dadka la yidhahdo ama eskimoska loo aqoon jiray guryahooda dhulkay ka qodan jireen kalluunka iyo maaragtay gaar ahaan bahalkan weelka la yidhaahdo kalluunka weyn ee badda ku jiran way ku noolaayeen dhulka markay qotaan halkaasay ku nool yihiin iyagoo dhanba dhulkaasi waxa weye geeda ma lahan buuro ma lahan waxa ma lahan dhul bana kolka galbeedkii buu tegey iyo barigiina wuu tegey
safarkii saddexaad yuu marka hadda u soo shiraacday alla wuxuu subxaana watacaala xataa idaa balaqa ilaa uu ka gaadhay bayna sadayni labadii buurood dhexdoodii meeshuu hadda dulqarnayn yimid waxa weeye waa laba buurood dhexdood buu hadda yimid laba buurood dhexdood ayuu ku yimid soo ma aragtaan xataa idaa balaqa bayna sadayni ilaa uu ku yimid labadii buurood dhexdoodii wajada min duunihimaa labadii buurood agtoodiina wuxuu ka helay qowman qolo dad laa yakaaduuna yafqahuuna qawla aan haba yaraatee fahmayn waxa uu ku hadlayo macnaha language barrier baa jiray dhibaato waxaa jirta xagga luuqadda oo ismayna fahmayn hadalkiisa maysan fahmayn hase yeeshee say noqotaba dadkii markii ugu dambeysay hadalkiisii waa heleen waa ayna isfahmeen kadibna fariintoodii bay u gudbisteen waxayna ku yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa dulqarnaynow ina yaajuuja wamaajuuj mufsiduuna fi lardi dhulka ayaa ay fasaadinayaan dadkan yaajuuj wamaajuuj bay deris lahaayeen dadkan iyo dulqarnayn ismay fahmin meeshaan aayadda furo weyn baa ku jira hase yeeshee maaragtay hadda ma gelina taa waxaan gelaynaa aayadahan sii wadanayna waxay yidhaahdeen ina yaajuuj wamaajuuja mufsiduuna fi lardi waxay yidhahdeen yaajuuj wamaajuuj dhulka ayay fasaadiyaan fahal najcalu laka kharjan ee waxay yidhaahdeen muxuu samayn karnaa adiga kharjan mushahaar kharash af soomaali kharjan kharash muxuu samayn karnaa lacag maku siin karnaa mushahaar maku siin karnaa sababtan wuu kuu siinaynaa kharashkana waxay tahay soo socda aayad kale ahayd macnaha waxay moodayaan inaad mushahaar weydiisanayso iyaga ood kharajan weydiisanayso irsiqa ilaahay baa ka khayr badan kolka ereyga kharaj waxa weeye waa mushahaar wax siin waxaan soomaaliga nidhaahno wey kharash nidhaahno la socda waxay yidhahdeen marka maxaan kuu siinaa kharajka calaa an najcala baynana wa baynahum sadda kharash baan ku siinaynaa haddii aad annaga iyo iyaga dhexdanaga ka samaynayso wax noo dhexeeya derbi noo dhexeeya wax noo dhexeeya dhexdanada ayaan doonaynaa inaad naga aabudho inaad maaragtay dhexdanada ka dhisto dhismo inaad dhexdanada ka xidho ogaada hadda meesha ay doonayaan in laga xidho waa labadan buurood dhexdooda okay waxaan idin tusi doonaa meesha keliya adduunyada qualify u ah ama ay macquul tahay in haddii jidka lagaa xiro aadan meel kale tegi karin waan tusi doonaa hadduu ilaa yidhaahdo marka waxay yidhaahdeen mushaarkaasaan ku siinaynaa haddii aad naga xidho labadaa buurood haddii aad naga awdo ood naga abudho yaajuuj maajuuj oo dhinaca kale ka fadhiya labadan buurood dhexdooda waa fahanteen soo maa qaala dulqarnayn wuxuu yidhi maa makaniya fiihi rabbii waxa rabbigay siiyey ayaa khayrun ka khayr badan wuxuu yidhi waxba haysiinina waxba idinkama rabo waxaad samaysaan laakiin faaciinunii biquwatin shaqo igu caawiya xoog shaqaale ii keeno yiri dad ii keena ila dhisa shaqaale ii keena yiri wuxuu yidhi waxa ilaahay siiya ayaa ka khayr badan imanka siiyey waxba idinkama baahna idinka laakiin waxaad yeeshaa waxaan u baahanahay shaqaale iyo muruq baan u baahanahay oo haddaad muruqa ay shaqaalaha ii keentaan maxaan samaynayaa buu yidhi ajcal baynakum wa baynahum radma idinka iyo iyaga waa yaajuuj iyo idinka meesha jooga dhexdiina waxaan ka dhisayaa derbi okay iyagu markii hore waxay yidhaahdeen saddan ereygan saddan carabiga ereygii iyagu ku yidhaahdeen ereygii ay maaragtay iyagu ku yidhaahdeen waxa weeye saddan weeye soo maa waa saddan isaguna wuxuu yidhi waxaan idinka samaynayaa radman baan idin samayn buu yidhi soo ma aragtan akhyaray radman okay waa laba erey oo hadduu ilahay hadduu ilahay idin rooye kala duwan hase yeeshee saddan iyo maaragtay iyo radman waa laba erey oo kala duwan carabiga macnihiisa meeshay culimo badan ku fashilmayna waa kan saddan waxa weeye waa meel kor ka xiran macnaha labaduba waa dhismo eeg hadda buurihii dhexdoodii baa dhisma laga samaynayaa laakiin iyagu waxay doonayeen saddan carabigii hore dictionarygu wuxuu sheegayaa waa meel xiran waxaan oo dhan xiran macnaha
dhulkaasoo dhan xiran. isagana wuxuu yidhi waxaan idiin samaynayaa redman baan idiin samaynaya. redman waxa weeye kor way ka furan tahay laakiin dhexdii buu buuxiyey, dhexdii buu xiray. iyagana waxay doonayeen inuu waxa dhan awdo. so waxa garateen maaha. aynu isku fiirsano marka. aayadda ku xigta dulqarnayn oo hadalkiisii wada wuxuu yidhi aatuuni zubur alxadiid. wuxuu yidhi aatuuni ii keena zubur qayb qayb alxadiid xadiida. wuxuu yidhi bir iron bir ii keena uu yidhi oo kus. waxaadna ogaataa birtu marka ay maaragtay kuskuuska tahay oo suu hadda dulqarnayn weydiisanayo oo kale, ingiliishka waxaa la yidhaahdaa iron ore baa la yidhaahdaa. so waxa garateen maaha. iron ore waxa weeye weligii sow dhul carraa miyaydaan tegin. meelaha dhulka ironta laga qodo carradii unbaad soo daraysaa. marka carradii markaad soo darto waxa weeye haddii ilaahay idiin roo yahay waa zubr alxadiid. gaariyoonihii ama gaari gacankii buuxa oo carraa waa zubr alxadiid. waa gaari buuxa oo carraa. kolka wuxuu yidhi carra ii keena. ninkani farsamayaqaan buu ahaa. ninkani dabku yaqaan. anigu markaan maaragtay maraykan joogay igu horreysa wadanka alxanka ayaan aad u bartay. marka ayadahan si gooni aan u fahmaya. so waxa garateen maaha. marka wuxuu yidhi xadiid ii keena. xadiidkuna waxaad ogaateen marka hore meel iska fadhiya waa carrada caadiga. carrada caadiga la soo qaadaa, dab baa lagu shidaa, farnash foorno weyn baa lagu shidaa daba. foornadii marka lagu shido carradii marka la gubo, carradii boqolkiiba 30 ayaa waxay noqonaysaa birtii iron bay noqonaysaa. birtii iyadoo waa laga soo qaadi, dab kale algelin, waa la kulayn, kadibna waxaa la yeeli sheebkii iyo qaabkii la rabay baa loo sameeyay. kolka isagu wuxuu yidhi aatuuni zubur alxadiid, carradii ii keena. so waxa garateen ma waayo dadkani hadday dee xadiid haystaan meelo ugu tiirsan bire hadday haystaan iyagaa ku samayn lahaa. laakiin wuxuu ujeedaa waxa weye waa dhagaxii ama carradii laga sameeyo. weedada dhagaxna waa laga sameeyaa xadiidka ironka, carrana waa laga sameeyaa. waayo dhagaxa naftigiisa qaar waxaa jira iron oo carradii ku jirta gudaha. marka wuxuu yidhi aatuuni zubur alxadiid ii keena xadiidka xataa idaa saawa xataa idaa saawa ilaa wuxuu yidhi aan ka buuxiyo labadii buurood farqigii ama gaabkii u dhexeeyey buu rabaa inuu buuxiyo. so wax garateen maaha. wuxuu yidhi xataa idaa saawa bayna sadayni ilaa labadii buurood dhexdoodii aan buuxiyo yaa wuxuu yidhi aan ku wadaynaa. dabcan hadda ayadda waa la soo gaabiyey, carradii baa loo keenay, wuu dhalaaliyey, kadibna wuxuu ku shubay dhulkii u dhexeeyey labada buurood. so waxa garateen maaha. qaala markaa kadib baa wuxuu yidhi macnaha markuu carradii dhalaaliyey oo birtii soo qaaday ayuu meeshii ku shubay. kadibna wuxuu ku yidhi anfuqu af soomaaliga waxa weeye afuufa. hadda birtii baa la dhaalinay. aayadahan waa aayadaha muujinaya qur-aanka sida birta loo sameeyo ayaa lagu barayaa. fiiri, culimadeenii hore, awoyaasheen hore waxba kamay aqoon, wayna akrin jireen qur-aanka. halkani waxaa lagu sharxayaa warshada iron making process, sida birta loo sameeyo. kadib markuu keenay intuu maaragtay carradii gubay, meeshiibuu ku shubay, kadibna wuxuu yidhi guba. anfuqu macnaheedu waxa weeye waa afuufa oo maaragtay ama bahalkan maqaarka ee maaragtay haddaad aragtay dadka Soomaaliyeed ay birta ku dhalaaliyaan ayaa lagu afuufayaa ama mishiin kale ee wixii ay haystaan bay ku afuufayaan. kadibna wuxuu yidhi xataa idaa jacalahu naaran ilaa aan ka dhiga dab. soo ma aragtaan hadda birtii baa la dhalaalinaya, wixii dhan baa la samaynayaa, meeshii baa lagu shubayaa. kadib markii ironkii uu ku shubay oo uu dhalaaliyey oo meeshii uu bir ka buuxiyey ayaa wuxuu yidhi mar kale wuxuu ka codsaday. wuxuu ku yidhi qaala aatuuni. wuxuu yidhi aatuuni buu ku yidhi waxaad ii keentaan iyadana maar la dhalaaliyey. markii hore aatuuni zubur alxadiid buu yidhi soo maaha. haddana wuxuu yidhi aatuuni ufriq calayhi qidra. ii keena maar la dhalaaliyey si hadduu ilaahay idiin roon yahay aan meesha ugu shubo. hadda markii koobaad xadiid buu ka buuxiyey. markii koobaad meesha wuxuu yeelay xadiid buu ka buuxiyey hadduu ilaahay idiin roon yahay. soo ma aragtaan macnaha xadiidkii markuu ka buuxiyey xadiid buu ka buuxiyey soo maaha. macnaha xadiid buu ka buuxiyey meeshii. okay, haddana wuxuu yidhi macdan labaad ii keena oo hadduu ilaahay idiin roon yahay iyaduna ah maaragtay maar ii keena uu yidhi. kadibna maartii ayaa uu mar kale ku sii darayaa fariid.
waxaan oo dhan waa idin sharxi doonaa. marka kadibna xadiidka baa lagu shubay, kadibna imaaratii baa lagu shubay. Okay, maxaa dhacay marka? maxaa dhacay? maxaa xadiidka loo keenay? Okay, waa yahay, horta aan dhamayna ayadaa. kadibna wuxuu yidhi sababtuu xadiidka iyo maarta iskugu daray, wuxuu yidhi fama stataacuu an yadharuu, ma awoodaan an yadharuu inay koraan. yadhara waxa weye daahir, inay muuqdaan oo dhinaca kale wadacaan ama korkiisa ay ka muuqdaan, ay ka tallaabaan, kama gudbi karaan. ma garatay? waxa uu kaluu yidhi wama stataacuu lahu naqba, mana awoodaan inay dalooliyaan. okay, daloolka waxaa ka celiyey xadiidka ayranka. ogaada hadda ninkani addoon barakaysan buu ahaa, ilaahay mucjiso siiyey, derbigan mucjisaa ku jirtay soo maaha. marka wuxuu yidhi saasay marka saasuu ku dhameeyey, uu meeshii ku buuxiyey labadii buurood dhexdoodii, saan sawirka hadda idinku tusay soo maaragti. kadib dulqarni wuxuu yidhi qaala hada raxmatu min rabbi, arrintan aan samaynaya iyo buurtan iyo labadan buurood dhexdooda oon birta iyo maarta ku shubay waa raxmad ilaahay xaggiisa iga timid buu yidhi. kadib wuxuu yidhi faidaa jaa wacd rabbi, markuuse yimaado yabooha ballanqaadka ilaahay ee meeshan inuu burburinaya ah, jacalahu dakaa, allah kuga dhigi doonaa dakaa, mid baaba ayuu ka dhigi doonaa, waa uu baabi'in doonaa meeshan. waxa uu kaluu yidhi wakaana wacdu rabbi xaqa, wacdiga rabbigayna waa xaq. soo waxaa garataan baa dulqarni halkaas ku dhimaad soo maaha. aayadda marka khatartaa ee muujinaysa yajuuju maajuuj dadka ay yihiin fiirsada marka. aayadda waxa weeye 99aad suurat al-kahf. alla wuxuu subxaana watacaala wataragnaa bacdahum yowmaydin, maalinkaas waa maalinkaas eegada maalinkani waxaa lagu yidhi wataragnaa bacdahum yowmaydin, maalinkaa waan uga tagnay qaarba qaar kale. waayo maalinkan maxay tahay? waa maalinka uu alla subxaana watacaala jacalahu dakaa, markuu alla derbigii dulqarnayn baabi'iyo maalmaha soo raacaya iyo maalinkaas weeyaan fiirsada. waan idiin sharxi doonaa. alla wuxuu subxaana watacaala wataragnaa bacdahum yowmaydin yamuuju, maalinkaa waxaan uga tagnay iyagii baa laisku sii daayay, yamuuju bacdahum fii bacdin, qaarba qaarka kale ayay kori doonaan. oo maaragtay hir iyo hir iyo after hir kadib koox kale, koox yajuuja iman, tii hore kuwii hore baabiin, koox kale yajuuj majuuja iman, kuwii hore baabiin, iyagii baa iska kori. soo maaragtan waa isbaabiin. alla wuxuu subxaana watacaala ونفخ في السور فجمعناهم جمعنا. markaa kadibna fiiri waxaa laga dhigay, fiiri meeshay dadku ku sirmeen waa kan. alla wuxuu subxaana watacaala ونفخ في السور فجمعناهم جمعا. kadibna alla wuxuu yidhi markii iyagii derbigii la dubiyey oo iyagii maalinkaa ay isku koreen oo saas oo kale ay isxiriiriyeen, waa idin sharxayaa marka. kadibna ونفخ في السور فجمعناهم جمعا, kadibna buunkii baa la yeedhiyey qiyaamaha. kadibna يوم القيامة بعد عين وجمعناهم جمعا. صوما يجي دمبان هدول لا يدين هو يهلو سبحانه وتعالى وجمعناهم جمعا وصور شرين. أوكي مركز الصومالي ماشي عندوني أدفعنتي ومعات المركز. ماشي نقول الغرنين دربي كسمي وحالي هذا داري الباس. داري الباس بالي هذا سوى حقرتين معه. داري الباس waxay ku taallaa xadka Georgia iyo Ruushka. Ingiriis baan ku qorayaa xadka Georgia iyo Ruushka. soo ma aragtaan sababta maxay tahay marka meeshan loo yiri macnaha labadan buurood ay u yidhaahda halkan keliya naga xig? sababtu waxa weeye meeshan xagga bariga waxaa ka xigta badda la yidhaahda Caspian Sea. soo waxa garateen ma xagga bariga waxaa ka xiga Caspian Sea baa ka xigta. xagga bariga waxaa ka xiga badda la yidhaahda Caspian Sea. xagga galbeedkana waxaa ka xigta badda la yidhaahdo Black Sea dhinaca kale. soo ma aragtaan kolka dhulkan Caspian Sea oo halkana iyo Black Sea halkana, intan kale oo dhan waa mountain range, waana 700 oo kilomitir. dhul laga gudbi kara ma aha. sidaa darteed yaajuuj maajuujna waqooyigay joogaan, iyaguna koonfurtay joogaan. dadkan waxa ay joogeen meesha la yidhaahdo Georgia iyo Armenia, dhulkaasay joogeen. halkana waa Caucasus Mountain, waa waqooyigeeda. eegada sababta ay meesha kaliya wuxuu sheegay waxa weeye adduunyadu ma jirta khiyaaray meel laba buurood iskaga yimaadaan oo haddaad labada buurood dhexdooda xidho ay
dadkay waqooyiga deganaa ee doonaya inay soo tallaabaan ay kasoo tallaabi karaan adduunyada kama jirto si fiican ma juqraafiga adduunka u aqaana haddaad xagga bariga tagto koonfur bari haddaad himalaayo tagto dee ma lahan himalaayo 5 kilomitirba meel baad ka gudbi kartaa buuraha kale noordhiga ma lahan afrika ma lahan waxba ma lahan weligaa miyaad aragtay buur dhul baas yar u dhexeeyo meel yar oo maro oo geesahana 700 kilomitir oo buuro dhaadheer oo mataqaanaa 50 dabaq 40 dabaq ay ka dhisan tahay cidi gudbi karin ma jirto halkaa keliya ka jirta okay marka muxuu marka dulqarnayn garanay birta garanay muxuu ugu shubay maarta wuxuu ugu shubay meeshan akhyaaray waxaa hadduu ilaahay irkoo yahay mara webi la yidhaahdo tareeg baa mara soo wax garateen ma ah webigan meesha mara webiga halkan mara halkan waa river tareeg baa la yidhahdaa webiga halkan mara waxa weeye waa sababtu maartu keenay waayo birtii haddii biyo korkeed laga dhisay webi korkiiba laga dhisay labada buuro dhexdooda webi baa mara sababta looga sameeyeyna waxay tahay waayo haddii kale birtu way daxalaysaa marka haddii laakiin hadda cilmiga sayniska waxyaabaha lagu ogaaday way fiiri aayadani 1500 sano ku dhawaadkii soo degtay wuxuuna layna tusaya subxaana watacaala haddii bir aad ku dhex samaysaan webi korkii ama biyo ama bad way dalxaysaa laakiin haddaad koobar ama maara ku dartaan alxankii waxay joojinaysaa maaragtay inuu waxaas raasta ku dhaco oo daxal ku dhaco soo maaragta kolka maarta wuxuu keeni waayo webi baa mara webigaas ayuu diidayaa inay derbigii uu dhisay ee xadiidka ka samaysnaa birta ka samaysnaa inay miridho kadibna maarta waxaa lagu shubay biyuhu maarta waxba kama qaadi karaan kolka yaa meesha deganaa meesha beriga waxaa deganaa dad la oran jiray hanis baa deganaa kay fiirsadayaa dad la oran jiray hanis ayaa deganaa oo mongol ahaa atila dahan soomedaan maqlo atila dahan dadkiisii baa deganaa waxaa kaloo deganaa meesha dad la oran jiray khazaris dad la oran jiray degan jiray okay waxaa kaloo degi jiray dad la oran jiray iyagana goob turki dad la oran jiray soo ma aragtaan khayaalay goob turkis macnaha saasaan iskaga qorayna dad iyagana goob turkis la oran jiray saddexdan ummadood marka kuwani badankoodu waa ka guureen yurub ay qabsadeen waa meesha laga keenay magacan hungary fiiri yajuuj maajuuj waa 500 oo qabiil isku tegay waxayna kasoo jeedaan nebi nuux wiilkiisa la oran jiray yaabis kolka hanis way ka tageen marka khazar baa ku haray iyo goob turkis marka labadan qolo maxaa dhacday marka labadan qolo waa labadii ku haray waqtigii nebigu dhashay sallallahu alayhi wasallam kuwan ayaa xukumayay kuwanna gacanyarahooda ayay u ahaayeen waana dad had iyo jeer isku jira saddexdan qabiil asalkooduna waxay kasoo guureen waddanka la yidhaahdo mongolia halkaa meelo qaadateen kadib waxaa dhacday waqtigii nebiga maxaa dhacay marka xadiis waa kii nebigu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam yajuuj maajuuj maalin walba derbiga way yimaadaan way la dagaalamaan way dalooliyaan markay qoraxdii arkaan dhinaca kale ka arkaan ayuu abaanduulahoodii ama taliyahoodii yidhaahdaa berri baynu soo noqonay waxaad yeeshaan inaga dhaqaajiya kadibna markay subaxii daba soo noqdaan siduu ahaa shalay galab say uga tageen bay kusoo noqdeen waayo mucjisaa ku jirta saan horeyda ku sheegay soo ma aha kadibna nebigu wuxuu sal ly slam dee kadibna maalin maalmaha ka mid a taliyahoodii ayuu ilaahay waafajin doonaa inuu yidhaahdo insha allah berri baynu soo noqon waynu dhammaystirayna kaaya kadibna markay soo noqdaan waxay usoo noqon doonaan darbigii oo sidiisiiya aan dhehe darbigii sidiisii ayagu uga tageen oo macnaha daloolkii ay u sameeyeen lama fix garayn maadaama lama awdin lagamana xidhin lama bolol garayn maadaama ay insha allah yidhaahdeen kadibna saasay ku jebin doonaan waa xadiis saxiixa soo ma ah nebiga sal ly slam okay rasuulku xadiiskaa markuu yiri xadiiskan dambe muusan hayn marka maxaa marka dhacay sanadkii hijrada ee 7 oona sanadkii hijriya markuu ahaa 7 soo waxa garatay ma aha hijriya markuu 7 ahaa waxayna kaloo ku beegnayd taariikhda 629 AD waa taqaanaan soo maaha okay bishii 7 ee hijriyada aan dhehe sanadkii 7 ee hijriyada bishii dulqacda oo ah bishii koytoonaad ee muslimiinta rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu joogay maka wuxuuna sameynayay cimro soo waxa garateen ma aha ogaada waxay ku beegan tahay 629 arrintani waa arrin aan baaray e-book baan ka qoray jaamacada waaweyn baa adduunyada lagu dhigaa haddii ilaahay rooyahay fiidiyona waa laga sameeyey labadii taariikh baan keenay marka muxuu nebigu yiri bishii 11aad ee sanadkan
toddobaadii hijriyada nebigu wuxuu sal alla alay wasalam waa kan xadiiskan qabsada marka Zaynab bintu Waxash oo ka mid ah ummulmuminiinka radiyallahu canha waxay tiri nebiga ayaa sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid a isagoo subax maaragtay argagaxsan oo aada u naxsan ayuu hurdada kasoo booday waa rasuulkeena maxamed sal alla alay wasalam xadiiskaas bukhaari 8 jeer buu ku jiraa baar markuu hurdada kasoo booday ayaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa ilaaha ila allah weylu lilcarab min sharin qad iqtarab laa ilaaha ila allah ilaahay maaha ilaah kale ma jiro xaq lagu caabudo weylun lilcarab carab halaag baa u sugnaaday min sharin qad iqtaraba sharta soo dhawaatay darteed kadib Zaynab radiyallahu canha waxay ku tiri yaa rasuulallah miyaana la halaagi haddii dad wanaagsan ay nagu dhex jiraan nebigu wuxuu yidhi nacam marka ay xumaantu badato fariid markuu yidhi kadib laa ilaaha ila allah ilaahay maa ilaah kale ma jiro subxaana watacaala weylu lilcarab min shari qad iqtaraba carab halaag baa u sugnaaday halaaga soo dhawaaday kadib rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam intayna Zaynab su-aasha weydiin wuxuu yidhi nebigu sal lla alay wasalam maanta waa maalinkaas waa sanadkii 7 ee hijriyada oo ku beegan bishii maaragtay dulqacda oo bishii 11 muslimka islamarkaana waxay ku beegnayd 629 bishii march ayay ku beegnayd taariikhdan anuu adeegsanaya computer program la yidhaahdo online calendar conversion calendarkaad isku bedeli kartaa calendarada adduunka bershiyan calendar baa jira maaragtay kan garogoriga Yurubiyaanka iyo kan islaamka program online website baa jira isku bedesha kolka nebigu sal lla alay wasalam sanadkii 7 ee hijriyada bishii 11 oo dulqacda maaragtay dulqacda saas oo kale oo ku beegnayd 629 maarso nebigu wuxuu sal lla alay wasalam maanta yaajuuj iyo maajuuj darbigii uu dulqarnayn ka dhistay ereygu nebigu isticmaalana waxay tahay wuxuu yidhi radman fiir sadan ma dhin sadan saan idiin sheegay qoladii markay tiri sadan noo samee wuxuu yidhi radman baa idiin samey radman labadana farqigooda waa idiin sheegay soo wax garatayna wuxuu yidhi radmigii dulqarnayn sameeyey maanta yaajuuj iyo maajuuj ayaa ka dalooliyey isagoo nebigu sal lla alay wasalam fartan iyo suulka isticmaalaya 90 digrii xagala samaynaya nebigu sal lla alay wasalam intaa in laga dalooliyey waa sanadkii 7 soo waxaa garateen maaha xadiiskaas waa xadiis aadan weligaa iyo allaha culimada ka maqleen carab iyo cajabi iyo afrikaan weligaa ka maqli maysa xadiiskan kasbaa loo qariyey baara idinku linkiina waa idin samaynayaa xadiiska waa la qariyey sidaa darteed haddii nimankii eegata xadiiskii hore ahaa maalin koobaad way ka tegi sidoobay ugu soo noqon markuu nebigu la yidhi sal lla alay wasalam kadib maalinka dambe insha allah dhihi doonaa kadibna waxay ugu imaan doonaan derbigooda loola kadibna way jebin doonaan derbigii yaajuuj iyo maajuuj waxaa la jebiyey sanadkii 7 hijriyada bishii dulqacda waxayna ku beegnayd 629 bishii maarch maxaa marka dhacay marka waxaan idiin sheegay meeshan waxaa deganaa qabiilkan Hans la oran jiray oo Yurub aaday sanado ka hor laakiin labadan baa ku horay waxaa ku haray khasaarka iyo goobturki khasaarku waa nimanka hadda Israa'iil sheegta waa qolada Netanyahu fiir xadiiska haddaan ku noqdo nebigu wuxuu sal lla alay wasalam weylun lilcarab carab halaag baa u sugnaaday min sharin qad iqtaraba sharta soo dhawaatay darteed soo ma aha okay nebigu ma dhihin sala allahu calayh wasalam weylun lilmuslim muslimkii halaag baa u sugnaaday xadiiska waxaa ka garanay yaajuuj iyo maajuuj waxay cadaawad u qabaan carabta waxaan idiin sheegay Netanyahu magaciisa runta Mikolowski baa la yidhahdaa awowgii waa Polish waa dadkii halkan degi jiray oo Poland aaday soo wax garateen maaha Netanyahu iyo Benyaminku waa Hebrew names oo loo bixiyey isaga waa caddaankii halkan ka guuray ee khazaar loolan jiray ee diinta yuhuudda haystay ee qaatay fiidiyoodii hore uga sheegay waxaas waad ogtihiin marka labadan qolo ayaa waxaa dhacda oo wada socda ayaa taariikhdu markay ahayd 629 bishii 7 buugaagta taariikhdan ka helay sida buug la yidhaahdo yahuudi khazaariya oo qoray nin loolan jiray professor Danlub oo British American ah waxaan ka helay taariikh iyo buugaag kale fara badan in markay taariikhdu waxay 629 ay labadan qolo wada socda ay iyagoo u adeegaya boqorkii loolan jiray Hiriqle ee Byzantine ama Roomaanka inay meesha ka soo tallaabeen derbigan Dariel Bass bay ka soo tallaabeen kadibna markay ka soo tallaabeen beershiyaankii oo haystay Armenia derbiga marka tallaabto waa Armenia Georgia macnaha xaggan carabta iyo Suuriya Ciraaq marka u soo socoto labada wadan ee koowaad ee helaysa marka derbigan ka taloodo waxaad soo gelaysa Georgia kadibna Armenia iyo Azerbaijan labadaba Iiraan baa joogay
ayaa ama beershiya nimankii la oran jiray beershiya la dagaalameen marka buuggooda taariikh waxaa lagu qoray inay derbigii soo jebiyeen halkaa yimaadeen soo waxa garateen maaha miyayna iswaafaqayn hadalkii nebiga sal alla slam derbigii maanta intaa leeg baa laga jebiyey iyo taariikhda ahayd 629 waanan u helay oo ebook internetka meelo badan ku jira youtube-ka lagu jiray janaaladii xataa ay ku jirtay waa la tirtiray waa taariikhan heleen alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaa waa maadale kolka yajuuj maajuuj waa labada qole saasay ahaayeen maxaa dhacay marka maxaa muslimka loo qariyey waxaa muslimka loo qariyey qarnigii 12aad ayaa qabiil turkiya ogaada de goob turku waa dadka turkiya laakiin qabiil kale ku jiray oo qabiilka muslimka 700 sano xukumayay waxaa la yidhahaa qabiilka uguusi baa la yidhahaa qabiil turkisha oo la yidhaahdo oo la odhan jiray uguusi ayaa waxay dhacday qarnigii 12aad bay muslimeen markay muslimeen kadib waxaa dhacday khulafadii bay inqilaabeen maaragtay cabaasiyiinta waa nimanka khulafadii cabaasiyiinta soo afjaray ogaada hadda maaragtay cabaasiyiintu waxay hore u afjareen khulafadii umaawiyinta waa nimanka soo afjaray iyaguna cabaasiyiintii carabna khaliifadii waa ku ka saaray kadibna seljuug bay keeneen kadibna waxay keeneen boqortooyada cusmaaniyiinta oo hadda dhow 1929 dagaalkii koowaad ee adduunyada lagu jebiyey waa nimanka sameeyey odayga helay oo seljuug la oran jirana wuxuu ahaa jenaraal ka tirsan boqortooyadii khasaariyey goob turkis yuu ka mid ahaa kadibna markay muslimka qabsadeen waa ay qariyeen taariikhda yajuuj maajuuj ilaa ay hadda nimanka muslim scholarska nimanka mutacalimiinta ee muslimiinta haddaad aragto magiisoo khan macnaheedu waxa weeye waa genjis khan yaan kasoo jeednaa ereyga khan waa mongol iyo turki macnaheeduna waa boqor genjis khan wuxuu sheegtay boqorkii caalamiga sooma marka reer khan markastood maqashid waa qabiilkii genjis khan kasoo jeeday genjis khanna boqolkiiba boqol wuxuu kasoo jeedaa boqortooyadii yajuuj iyo maajuuj akhyaari halkaa meela fahanteen qabiilo badan baa halkan ka guuray waxaa ka guuray qabiilka la yidhaha alans waxaa ka guuray nimankan la yidhaahdo maaragtay waxaa ka guuray viking baa ka guuray viking halkan ay ka guureen galbeedka yurub oo dhanna waa viking waxaa haystaa bilmatalan faransiiska nimanka qabsaday normandy baa la oran jiray waa normandis waa reer waqooyi waa sweden iyo norway denmark dadkii ka yimid ingiriiska kuwa qabsaday waxaa la oran jiray maaragtay haduu laadiin ruu yahay waxaa la oran jiray anglo iyo judes iyo saxons scandinavia kasoo guureen labadaas saxons waxay kasoo guureen jarmalka america waxaa qabsada waa iyaga nato waa yajuuj iyo maajuuj waxaan ku jirnaa waqtigii yajuuj iyo maajuuj nimankan hadda yahuudda israa'iil sheegtana qarnigii toddobaad maaragtay 110 sano kadib geerida nebiga sallallahu alayhi wasallam ayaa ay qaateen diinta yahuudda kolka khiyaara may garateen kolka ayaddii kale ahayd suuratul maaragtay qaybta labaad lagu sheegay suuratul anbiya alayhi subxaana watacaala وحرمنا قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا يفتح يجوج وماجوج وكل من الحد ينسلون الله سبحانه وتعالى قرية هلاكني وقوم نوحنا إن يقصون نقضان إلا يجوج وماجوج لسيدا يجوج يجوج وماجوج على الله سبحانه وتعالى وكل من الحد ينسلون كسو دقة يميل صري وكي بوران كوكس كليري هذا جورجي روشكي ساسا ويكسر ريان دول كان عرب تبريق الدحي سيدا درتي لغفك وقوي كإيمانية ودادك وبياشن lagu yiraahdo furaad iyo dajle ee ciraaq iyo suuriya soo galana waxay ka yimaadaan buurahan turkiga iyo kurdiska ka yimaadaan oo iyaguna mountainka caucaska ayaa biyaha ku soo shuba marka wixii xagga ka yimaadaba wahum xadda biyansilun waa iyagoo meel sare kasoo dhaadhacay oo kale khiyaare meela fahanteen alla markuu leeyahay subxaana watacaala qaryana waan ka mamnuucnay dadka aan halaagnay inay soo noqdaan ilaa yajuuj maajuuj la sii daayo waxa weeye waxaan hadda idiin sheegay nimankan anglo-saxon oo dhaho ee ruushka ee aan dhahe faransiiska aan dhahe macnaha ingiriiska iyo maraykanka iyo saasa waa nimanka yahuudda kusoo celiyey 1918 markay boqortooyadii cusmaaniyiinta ka qabsadeen dhulka soo waxaa garateen maaha asalkooduna waa yajuuj iyo maajuuj boqolkiiba boqol anoo saan rumaysan maan aakhire la gelin soo waxaa garateen maaha dhammaantoodna boqortooyada British Empire-kuna waa kuwa yahuudda soo celiyey British Empire-na waxay ahayd iyo waa qayb kamid ah yajuuj iyo maajuuj ilaa haddadan ingiriisku sanado ka hor baa la joojiyey sanad kasta waxay u dabaaldegi jireen boqorkoodii la oran jiray yajuuj iyo maajuuj oo magaalada London la marin jiray akhyaaray daawada fiidiyogan wax yar bal fiidiyogan daawada Sculptor David Evans puts the finishing touches to two old friends of Londoners, Gog and Magog. 12 years ago, effigies of the two giants were destroyed when the city's Guildhall was blitzed.
But now exact replicas copied from models are all set to go back to town to take their place. Outside Guildhall, where Gog and Magog have made their home since the reign of Henry V, crowds welcome their return. Weighing 3/4 of a ton each and standing 9'3", they dwarf the onlookers. Although no one's sure why they should live in Guildhall at all, it's certainly like old times to have Gog and Magog in London again. Soomaalida daawan inay markasta xayisiin jireen Yajuuj Maajuujka ay u dabaaldegi jireen Ingiriisku waa kuwa Yuhuud soo celiyey waana Yajuuj Maajuuj waxaan oo dhan waa Yajuuj Maajuuj wuxuuna Yajuuj Maajuuj waxaa la sii daayey waqtigii nebiga sanadkii hijriyada toddoba markay ahayd 690 ku beegnaa kolka waxba kama jiro waxaan lagu leeyahay Yajuuj baa qarsoon xadiiska kalena ka waran xadiis kale nabi ciise calayhi salaam waqtigiisa alla leeyahay subxaana wa tacaala waxaan idinku soo fasaxayaa Yajuuj Maajuuj xadiiska celin kartaa jirin اوكي آية القرآن كم قصيني سبحانه وتعالى ويموت يومئذ بعدهم بعد لا يصوب بالله وقرنه إلا يترنا مركي عباسيين تلا اللي إلا قيامها وقد عيوم ماركتي قبيلة يجوج وماجوج أيوم بدون من عكسن دونا قواسي مركا وراعة تنبئ إيمان دونا سانو قياسيا واشينا شينو يوروب يجا جميل دونا ويجوج وماجوج كما تجيبيها يجا يوي يكون النبي عيسى ويرد دونا إيمان دونا وان لسكمن عرين كرو ملايين يا ملايين أخيرا ميجاتين يجوج وماجوج ورسوا بالله بقرن إلا بيتبناد ميلادي الدنيا يجا عيستا هديتها تركي ومسلم حكومي هديتها إنجليزكا هديتها نماك إسبانيشكا والورنجري آلانس يا فيزيكادز وحن اليوروبيان كأركتان الدنيا الحكومات ستدي بغلا السنة لصور دافي يجا حكومة يواني يجوج وماجوج إلا بونك لغيري سيدو الله يري سبحانه وتعالى آية القرآن كاسون قصتان معناها iyagoo adduunyada saa u xasuuqaya ayuu qiyaamuhu ku yeeri doonaa kolka waxa weeye ya akhyaaray iyo waqtigii Yajuuj Maajuuj baa lagu jiraa haddaadan qancin ma aqaan waxaan kugu sameeyo waxyaalo waaweyn caddeyn aan kuu keenay kolka waxa waaye macnaha Yajuuj Maajuuj waxaa la sii daayay waqtigii nebiga waxaa laynooga qariyay oo sheekh Soomaaliya iyo Muslim iyo Caraba iyo kale aadan ka maqleen weligaan waxa weeye qabiilka loon jiro Guuso nimankii Seljuuq iyo Cusmaaniinta aasaasay ayaa qayb ka mid ah Yajuuj Maajuuj ah buugaag taariikhda qarsoon uu sheegay fiiri anigu library Al-Azhar baan tegey oo cilmiga adduunyada yaal Al-Azhar waxay jirtaa 1100 sano wax la wixii 1100 sano la soo dhaafay taariikh way taallaa waxaa koray caara kortay iyo dabas haddaad aragtaan macnaha waad la yaabeysaa waxa meesha yaala waayo laga soo bilaabo nimankii Fatima la oran jiray ee asaasay wixii ka dambeeyey niman la oran jiray mamluuk oo Turkish ah qabiilkan ugu iska tirsanaa Masar qabsaday waxaan oo dhan waa la qariyay kolka waxaad ogaataan waqtigii Yajuuj Maajuuj baa lagu jiraa waxaan carab xukumo oo dhan waa qabiilo Turkiya oo asalkoodu yahay Yajuuj iyo Maajuuj waqtigoodu baa lagu jiraa kolka ilaahay khayray tawfiiqda ana waafajiyo wallahi cilmi baaristaydan waa cilmi baaris aan hore loo arag ما قرأت ورقة صومالي ما قاعدين حاسب هيني معناها عندنا مشاركة ومرة عندنا بالله ومرة لكن وحالين شيء جاي معناها وحال وجوا وحال وجرا وقت جي يجوج وماجوج أتون كان يجا هيستا إلا يوم القيامة وقد عيو أما هو بيران نبي يسوع تكسب عيو أنت بون صور كالغيرني سيدا الله سبحانه وتعالى يجوج وماجوج أي قلب يعني ريح دون طلب دجالم دجال كيكو بدي دجالم يجوج وماجوج بعد دجالم دجال كلا بدي دجالم إسرائيل يجي بعد دجالم يجوج وماجوج dagaalka saddexaad iyo hadda isku hanjabaya Shiinaha iyo Ruushka iyo NATO waa isla Yajuuj Maajuuj adduunka lama jiro kolka khayray waa Sayyid Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh